maxaa dhici kara haddii aadan jiifan muddo 15 maalin ah balila taawo tijaabadan ay sameeyeen baarayaal Ruushiyaan ah dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Baarayaasha Ruushka dabayaaqadii 1940-yadii waxay 5 qofood ku hayeen soo jeed muddo 15 maalmood ah iyagoo adeegsanaya gaaska dadka hurdada u diida. Waxaa la geliyay meel xiran si ay si taxadar leh ula socdaan qaadashadooda oksijiinka si gaaska uunan u dilin maadaama sunta ay ku jirto meel xiran. waxaana meesha loogu xiray kaamirooyinka waxduuba iyo mikrofon la doonayo in lagu dhageysto codadka ka soo baxaya qolka. sidoo kale waxaa loo xiray ookiyaalayaal cabir leh. qolka waxaa ka buuxay buugaag, sariiro ay ku seexdaan, biyo, musqul iyo cunno oo ku filan dhammaan shantooda muddada bisha ah ee loo asteeyay inay tijaabada socoto. tijaabadan ayay kaga gol lahaayeen bal inay ku ogaadaan muddo intee la eg ayuu qofka si xiriir ah u soo jeedi karaa si ay ciidankooda ku jira furimaha dagaalka u geliyaan soo jeed muddada ay tijaabada ku soo ogaadaan. haddaba maxaa ka soo baxay tijaabadii? wax kasta way fiicnaayeen 5 maalin ee ugu horeysay. wadahadalkooda iyo ficilladooda ayaa la kormeerayay waxaana la ogaaday inay sii wataan ka hadlidda iyo ka sheekaynta dhacdooyinkii naxdinta lahaa ee soo maray noloshoodii hore. maalintii 9aad mar qura waxaa isbedelay xaaladii, taasi oo 5 nin ay ku dhaqaaqeen ficillo waali ah oo marba marka ka dambeeda ka sii daraya, sida kala dhandaalida buugaagta, jajabinta alaabta. xaalad kacsanaan ayaa ka dhalatay qolkii ay ku jireen. mid ka mid ah raggii ayaa aad u qeyliyay weliba si xad dhaaf ah ilaa codkiisii si iskiisa uu go'ay. ha yeeshee si gadiisa codadkii ayaa istaagay oo qolkii waxa uu noqday mid degan, aamusan. cilmi baarayaashii waxay go'aansadeen in ay furaan qolka, laakiin cod gudaha ka imaanayay ayaa ku jawaabayay ma doonayn in la sii daayo. maalintii 15aad gaaska hurdada u diida dadka ayaa lagu bedelay hawo fareesh ah. natiijooyinkii ka dhashay waxay noqdeen kuwa fowdo ah. mid ka mid ah raggii ayaa dhintay. rabsho ayay meeshii ka dhaliyeen waxayna bilaabeen inay iscunaan oo mid walba uu isaga jirkiisa cuno. qolkii ayay ka dhigeen dhiig iyo xinjir waxayna diideen inay dibadda u soo baxaan. cilmi baarayaasha ayaa ku weeraray xaaladda waxayna weydiiyeen sababta ku qasabtay inay isdilaan oo jirkooda ay cunaan. waxayna dhammaantood bixiyeen jawaab isku mid ah, taasi oo ah waynu soo jeedinaa. baarayaasha ayaa waardiyaasha ku amray inay albaabka furaan si qasab ah, laakiin way diideen sababtoo waxay ka baqayeen muuqaalka jirkooda oo u muuqday qalfoof iyo jirkooda oo dhiig leh. lalaba ayaa qabatay baarayaashii iyo waardiyaashii. xoogaa haddii la joogayna waxaa isdilay mid ka mid ah raggii. cilmi baarayaashii ayaa dadaal u galay inay badbaadiyaan 3 hartay. waxayna ka saareen meeshii waxayna geeyeen isbitaal si loogu dabiibo loogana dhayo nabaradii dhaawacyadii soo gaaray. mid ka mid ah raggii ayaa dhakhtarkii ku yidhi waynu waalanahay iyo hadallo kale oo wali muujinaya. muddo ma aynan sii raagin oo ma aysan sii noolaan. 3 nin waa ay dhinteen. tijaabadan ayaa ah mid caan ka noqotay dunida iyadoo laga bixiyay falcelino badan. qaar ayaa oranaya waa sheeko la qurxiyay ee ma ahan mid xaqiiqda ka turjumaysa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.